كيش كمان هيكتا أوزكي هيجوكا أوزكي ماش كريكتا dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala nool dalkii dibadiisa ayaa maanta xarunta barbaarinta agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed xoolo nool iyo raashin gaarsiiyay ugu talagaleen inay uga qayb qaataan dabaaldegyada toddobaadka xorriyadda munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xarunta ay caruurta ku soo bandhigeen ciyaar dhaqameedyo ku aadan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo loo tababaray injineer xasan weli xuseen oo wakiil ka ah dhalinyarada soo xilqaamay ayaa sheegay in si joogto ah ay uga warqabi doonaan caruurtan maadaama ay yihiin dhiigii halyeeyadii naftooda u horay dowladnimada Soomaaliyeed in loo xoolo qalo biskudkoodii xalwadoodii muxuu ahaay wixii kale ay u baahnaayeen oo ciid ah oo dabaaldega ayaan ugu talagalnay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay sii socod doonto oo aysan noqon doonin maanta kaliya aysan noqon doonin waxaan rajaynaynaa mustaqbal markasta oo ciido timaado ama ciidda Ramadaan ka noqoto ama hadda ciidda lagu soo foolay oo carafada ha noqoto iyo dhiirigelinta isboortiga iyo qalabeyntooda iyo ka warqabkooda waxay noo noqonaysaa joogto Danaan Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo ka gudoomay dhalinyarada hadiidaha ay u keeneen ayaa sheegay in xaruntan ay ka jirto nolol heer sare ah hase ahaatee u baahan yihiin in gacan laga siiyo waxbarashada farsamada gacanta oo haatan qayb ka mid ah la baro caruurta wamaadsantiin Soomaalida markii leen loo meel wax yar iftiin laga tuso ay mid kala raadsataa annaga hadaan nagu tala galshaan waxaan nooga tala galeysaan waxaan cunno itemka koowaad ma annaga itemka koowaad waxaan noo ah maxaa jiingada oo heli kartaan maxaa shameeytaa oo heli kartaan meel wax ku baran inaan dhisano meel dadka lagu sii balaariyo farsamo ayaan wadnaa hadda meel sariiro lagu sameeyo ewl meel bulkeeti lagu sameeyaa noo sameysneed meel rooti lagu sameeyaa noo sameysneed haddana waxaan rabnaa meel sariira lagu sameeyo birta lagu alxamo meel korontada laga barto waxaas wixii anfacaya cunno kaliya uma taagna xaruntan barbaarinta caruurta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay haatan gacanta ku hayaan 110 caruur ah oo la baro waxbarashada heerar kala duwan sida diiniga maadiga iyo farsamada gacanta sidoo kale adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada waxay ka helaan dowladda federaalka Soomaaliya ganacsato Soomaaliyeed waqti shacab u baahinta qaranka Muqdisho Thank you.